السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنة كمركز السود وهذا أدي هذا وما سنتهين ما أنت وأربعة وأنا صدق هذا بش السجارات سبتمبر سنة كلابا كون يشان يلا باتنكا مقال كان وحر ربعنا إن كل وذاقه وزارة أرمها الدبادة أمريكانكا وإسبدل دوان كوسمين دونتا انترفيو ذا أي مريان ضدك اسكت دعوونية يوليبا مالها أي كم مريان أرنتن أو كدم بيسيك دمركي ترام وحلك اللوريجي shaqaalihii dowladda federaalka u shaqeynayay kuwii gudaha Mareykanka ka shaqeynayay iyo kuwii wadanka dibadiisaba ka shaqeynayay in la yareeyay taasi oo sababtay safaarada badan iyo qunsuliyada badan in la xiro arintaasi isbedelkan muxuu yahay ayaan rabaa inaan idin la wadaago balse marka hore soo dhaw dibadda Mareykanka ayaa waxay soo saartay qoraalkan toddobaad ka hor 28 bishii Agoosto ee dhamaatay oo talaadadii hore ku beegnayd ayaa qoraalkan ay soo saartay qoraalkana waxa uu micnaheedu yahay in isbedel uu ku imaanayo dadka immigrant visa-ga waxaan hore idinku sheegay immigrant iyo non immigrant inay kala duwan yihiin immigrant visa-ga waa dadka isku dacwoonaya lamaane isqaba waalidka caruurtiisa uu dhalay iyo sidoo kale dadka waalidiintoodu u dacwoonayo non immigrant-na waa DV lottery-ga dadka waqtiga nasiib ku imaanaya qof ganacsi ku imaanaya qof dalxiis ku imaanaya qof booqasho ku imaanaya arrimahaas oo idil ayaa non immigrant soo galay marka arrintan waxa ay qusaysaa interviewada dadka marka aad u dacwooto halka ay interviewada ku mar lahaayeen meelo gooniya oo hadda loo qoondeeyay wadamo gooniya ayaa jirto maadaama Trump markii uu xilka la wareegay dawladdu ay bilowday qaybtii Department of Government Efficiency oo markii hore Elon Musk loo xil saaray walow isaga iyo Trump ay isku dhaceen in dawladdu lacagaha ay qarash gareynaysa in la yareeyo arrintaasi waxa soo gashay marka shaqaale federaal ah in inta badan shaqada laga ceeriyo kuwii wadanka gudihiisa ka shaqeynayay iyo kuwii wadanka dibadiisaba ka shaqeynayay arrintaasi marka maxay sababtay markii shaqaalihii la yareeyay in safaarada badan la xiro oo Mareykanku uu yiri macna badan ma aysan ku fadhin oo wadamadaas shaqo badan ma aysan ka haynin iyo qunsuliyada badan la xiro marka maadaama safaarada wadamo la xiray dadkii interviewada wadamadaasi joogay wadanka ugu dhow safaarada ku taala ayaa waxa loo wareejinayaa interviewga ay ku mari lahaayeen haddaba wasaaradda arrimaha dibadda marka amarkan waxay soo saartay 28 bishii hore toddobaad ka hor waa talaadadii la soo dhaafay ayaana ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda marka waxay leedahay hadda kadib waxa loo baahnaan doonaa immigrant visa applicantska dadka on xareystay dacwadaha immigrant visa-ga in interviewgooda ay ka maraan qunsuliyadda ama safaaradda loo qoondeeyay waxaan ognahay qofku markuu dacwad xareeyo dacwadaasi marka hore USCIS ayaa gacanta ay ku dhigtaa USCIS marka ay approve gareyso waxay u gudubtaa National Visa Center-ka ama NVC ayaa loo soo gaabiyaa qofku marka dokumentiyadii looga baahnaa iyo lacagihii looga baahnaa uu dhameystiro markaas kadib National Visa Center-ka ayaa qofkaasi meesha uu joogo wadanka uu joogo ama safaaradda ugu dhow oo qofku mararka qaar uu codsan karo ayaa interview looga qaban karaa marka ay safaaradda uga qabanaysa waxayna ku xiran tahay interviewgaasi National Visa Center-ku waxay fiirinayaan meeshaas uu qofku joogo safaaradda ku taala ma ka banaan yihiin wax ballamaha oo interview ah dad qaar way jiraan ayaguna online intay galaan ballamaha qabsada availability-ga intay fiiriyaan maalmaha bannaan ay ballan qabsadaan laakiin hadda waxa ay wasaaradda arrimaha dibadda ay leedahay hadda kadib waxa loo baahnaan doonaa dadka immigrant visa applicantska oo soo codsaday ama soo dalbaday immigrant visa in interviewga ay ku maraan halka ay National Visa Center-ku ay u qoondeysay inay ku maraan waa halka ay joogaan oo markaasi ee qofkaasi uu joogo oo mudagan yahay ama sidoo kalena wadanka ama nationality-ga ay wataan dhalashada ay wataan oo ay ku dalbadeen ayaa la eegayaa markii viisaha ay dalbanayeen marka waxa ka soo haraysa limited exceptions waxyaabo ayaa jira ka gooni ah oo laga reebay gadaal ayaan idinka sheegi doonaa marka the National Visa Center-ka ayaa marka laga bilaabo 1 bisha November ee 11aad ee sanadkan 2025 National Visa Center-ka ayaa waxa ay sameyn doontaa in dadkaasi soo codsaday viisayaashaasi ama loo dacwoonayo in National Visa Center-ku ay iyadu ballanta u qabato wadanka ay joogaan markaasi oo ay degan yihiin oo ay ka soo codsadeen in markaasi ballanta looga qabto ama wadanka ama nationality-ga ay yihiin iyagoo la eegayo ama wadanka ay ka soo jeedaan marka dadka joogo amaba degan wadamada laga joojiyay in interview visa lagu maro amaba hakadka la geliyay waxaa loo baahan yahay in wadanka ugu dhow ee loo qoondeeyay interviewga ay ku mari karaan in ay tagaan markaasi kadib qofkaasi waxay noqonaysaa in meesha ugu dhow oo aan idin sheegi doono hadda wadamada sida ay kala yihiin halkaas inuu tago uu interviewga uu ku maro
wadamada waa ay badan yihiin sida aad arkaysaan Afghanistan iyo ka bilaabanayaan laakiin anagu ma daneynayno balan fiirino wadamada ku yaala Afrika amaba xitaa bariga Afrika balan eegno Eritrea oo kale qof Eritrea jooga haddii uu doonayo interview inuu Mareykanka u maro laba meelood ayuu tegi karaa waa Addis Ababa iyo Nairobi oo caasimadaha Ethiopia iyo Kenya aan soo soconna marka Soomaaliya qofku hadduu Soomaaliya joogo ama uu Soomaaliya wadanka Soomaaliya u dhashay uu doonayo interview inuu u maro safaaradda Mareykanka waxa uu tagayaa Nairobi waa caasimada wadanka Kenya halkaasi ay interviewga ay Soomaalidu ay ku mari karaan dadka marka wadamo kala joogay oo ballamo lahaa ballamahoodii loo qabtay iyagana qaybta dambe ayaan idinku sheegi doonaa hadda South Sudan oo kale dadka South Sudan u dhashay iyaguna Nairobi ay ku marayaan Sudan wadankan kale ee Sudan oo hadda dagaalku uu ka socdo iyaguna magaalada Qaahira ee caasimada wadanka Masar ay ku marayaan dadka Yemen jooga iyaguna waxa ay ku marayaan Djibouti ama Djibouti ay interviewga ay ku marayaan dadka Zimbabwe jooga magaalada Johannesburg ee wadanka South Africa ayay ku marayaan marka aan eego marka dadka ballamada ahaa oo horey ballamo loogu qabtay maxay wasaaradda arrimaha dibadda ay ka tiri wasaaradda arrimaha dibadda waxay leedahay dadka ay ballamo hore ay horey ugu jireen ballamahoodaasi lama bedelayo oo ballan kale looma qabanayo mana la kansalayo halkii ballamaha looga qabtay ayay ballamahooda ay ku mari doonaan haddii ilaa iyo November amaba la gaaro 1 November oo sharcigan dhaqan galayo amaba wixii ka dambeeyay haddii aad ballan lahayd oo ballantaada lagu qabtay halkii ballanta interviewgaada uu ahaa safaaradii lagaga qabtay ayaad ku mari doontaa marka sharcigan uu dhaqan galo 1 bisha November oo bisha 11aad ee sanadkan 2025 qofka viisaha soo codsaday haddii uu doonayo kiiskiisa in loo wareejiyo meel kale oo interviewga uu doonayo inuu ku maro oo safaarad cusub in loo wareejiyo ay tahay marka ay National Visa Centerku ay ballan u qabteen waxa uu si toos ah qofkaasi uu la xiriiraya National Visa Centerka laakiin lama xiriirayo safaaradda ama qunsuliyadda arintaasi qaabilsan lama xiriirayo sidoo kale qofka viisaha soo codsaday haddii uu doonayo interviewgiisa in meel kale loogu wareejiyo aan ahayn halka ay qunsuliyadda ama National Visa Centerku ay u qoondeeyeen waxa National Visa Centerku ay uga baahnaan doonaan in codsiyo dheeraad ah ama warbixin dheeraad ah uu soo gudbiyo sababta uu u bedelanayo interviewgiisii oo halkii loogu qabtay uu ka bedelanayo uu doonayo meel kale in loogu bedelo marka arintaasina waxay ka go'daa National Visa Centerku inay ka ogolaato codsigiisa in loo bedelo interviewga iyo waliba in kale waxaa jira waxyaabo exceptionist ah oo laga soo reebay aad ayayna dhif u yihiin waxaana kamid ah humanitarian haday tahay arin bini'aadanimo haday tahay qofku waa laga reebay oo meeshii uu rabo ayuu ku mari karaa haday tahay medical emergency qofka hadduu xanuunsan yahay xaalad caafimaad ay degdeg ay tahay asaguna kuma jiro sidoo kalena foreign policy reasons siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka reasons ama sababo la xiriira haddii ay tahayna iyaduna kuma jirto arintan sidoo kale waxa ay quseynaysaa diversity visa dadka DV lottery-ga ama baqtiyo nasiibka iyaguna ku guuleystay hadda sanadkan oo 2026 waa ay quseynaysaa maxaa yeelay haddii aad Soomaali tahay passport Soomaaliya hadda travel ban ayaa saaran waxay u badan tahay in maamulka Trump uusan ogolaanaynin laakiin qofku passport kale haddii uu haysto wadamadan kale ee Afrika waxay tahay sida Ethiopia iyo Kenya in haddii xitaa uu Soomaali yahay interviewyadan meelaha loogu talagalay in uu qofku uu ku mari karo sidoo kale Addis Ababa iyo Nairobi ayaa hadda labada meelood iyo waliba Djibouti iyo Qaahira ayaa waxay tahay meelaha Johannesburg iyaduna ay ku jirto meelaha ugu waaweyn wadamada Afrika safaaradaha ugu waaweyn ku yaalaan oo hadda dadku ay tagi karaan isla markaana interviewyadooda ay ku mari karaan marka isbedelkaasi ayaa wasaaradda arrimaha dibadda 28 bishii hore ee Mareykanku ay ku dhawaaqday waxaana si rasmi ah ay u dhaqan galayaan in 1 bisha 11aad ee soo socota sidoo kale waxa jirta in wasaaradda arrimaha dibadda iyaduna ay ku baaqday non immigrant visa-ga dadka iyaguna waxa jira interview waiver wax la yiraahdo in laga dhaafi jiray interviewga qofku waxa uu doonayay dalxiis inuu ku yimaado qofku waxa uu doonayay booqasho inuu ku yimaado qofku waxa uu doonayay dalxiis inuu ku yimaado waxbarasho inuu ku yimaado shaqo inuu ku yimaado markii hore waxa jiri jirtay in interview aan laga qaadin marka laga bilaabo shalay oo bishu ay ahayd 2 September sanadkan 2025 in hadda la bilaabay in person interview qofku uu tago safaaradda ama qunsuliyadda isla markaana interview laga qaado waliba waxyaabo fara badan la weydiinayo sababta uu tagayo xilliga uu soo laabanayo haduu dalxiis yahay imise lacag ayuu haysta markii hore inta badan waiver wax la yiraahdo ayaa jiri qofka waa laga dhaafi jiray marka arintaasina dadka da'doodu ay ka hooseyso 14 sano ilaa 79 sano ayay quseynaysaa oo interview waiver wax la yiraahdo gabi ahaanba
dowladda Mareykanku waa ay joojiso lagama dhaafayo qofku safaaradda ama qunsuliyadda in person shakhsiyan waa inuu tagaa isla markaana sargaal uu hor fariistaa halkaasina interviewgiisa lagu marsiya aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waro idinla sidaa iyo nabadgelyo